miyuu ciyaaryahanka Manchester City Erling Braut Haaland qaatay diinta barakeysan ee Islaamka? Maxay tahay muuqaalka hadalhaynta badan ka dhaliyay warbaahinada oo idil saacadihii ugu dambeysay? Intaan hadal idin bilaabinna idinkaga dhexbaxo muuqaalkan. لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. waan ogahay in muuqaalkan uusan ahayn mid sax ah uuna yahay mid lagu habeeyey aaladda caqliga macmalka ee artificial intelligence-ga ama aad u taqaanid AI, balse marka laga soo tago muuqaalkan, miyaad ogtahay Haaland inuu ka mid yahay ciyaaryahanada lagu tiriyo inay haystaan diinta barakeysan ee Islaamka? Inkastoo isaga si rasmi ah uusan u sheegin inuu yahay mid haysto diinta Islaamka, haddana badanaa waxaa la arkay isagoo isticmaalaya sida ereyada alxamdulillaah, insha Allah iyo erayo sidoo kale gaar u ah dadka haysta diinta barakeysan ee Islaamka. Sidaad oga jeedaan sawiradan waa Haaland oo isticmaalaya ereyadaas, waana sababta keenaysa in ciyaaryahanka lagu tiriyo diinta barakeysan ee Islaamka. Haddaba adiga aan kaaga dhexbaxo muuqaalka, ma isleedahay Haaland waa ciyaaryahan Islaam ah kaas oo qarinaya diintiisa, maadaama shakhsiyan uu isagu yahay mid aan looga baran ka hadalka waxyaabaha sida qaaska u quseeya noloshiisa? Saaxiibayaal, haddii muuqaalka aad dhamaysateen moogaanina inaad usii sheergaraysaan saaxiibada kale, cidda boga ku cusubna ayna soo follow garayso. Mahadsanidin.